asxaabteeda qaaliga maanta gabar aroosad ee aan keeg u sameynayaa maanta 5 xabo doolsho oo ishcalaa oo fudud oo ku dhibeynin maanta kasoo tuurooyaa nala socdaa isoo dhawaada asxaabtii ugu xiran channelka igala socotaan waa Sacdi Cook and Beauty. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi saxaabe maanta waxaan sameysanaynaa doolsho oo gabadho aroos ah u sameynayaa marka waxaan ku haystaa waa ukun waa 25 xabo oo ukun ah kan waxaa waaye baking powderkii oo lagu sameynayo keega lagu fixinayo intii ugu filan qaadana kana waa ukuntii kana waxaa waaye sokortii kana waxaa waaye bur kana waxaa waaye alaabtii lagu dubi lahay kana bootarkana waa marinaa waxaa waaye saliid waxyar u baahanahay bismillaah kana waa kushiida kana waa kushiida oo ku hor fududeynaya si ay igu fududaato oo ii dhibin marka hadda waxaan sameynayaa bismillaah kan intaan dhiganaa si qolofta inta ugu shubo bismillaah waxaan u baahanahay 5 xabo ukun وعشان حبوكم qolofta yariistaas oo iga dhacdaan ka bixinaayay waxaan intuu shubanayo saas waaye inta markaan ku waxeenayo waxaan ka cabsanayaa qolof iga dhacdo bismillaah كو لو 6 كو لو 6 4 5 يا شو بكيري سكرته بسم الله وحنشوها سبكير وعانه وحكى لو باهنا هاي وحير السديد سريتن وانتس قياست هذا
shubaynaa burkii. Bismillah. haddana burkaan ku shiidaa. saxaabi kana waxaa waaye baking powderkii. Bismillah. hal xabo iyo waxaan ku darsanaa wax yar oo haaf ka badinayay wax yar oo qiyaas yacni si oo doolshada si fiican ay ugu kacdo. qaarkood si fiican waxay u kicinayaan, qaarkoodna wuu kicinaa. waa kaasa waa hal macalgo iyo haaf saas waaye. saxaabe kan waxaa waaye subag. kan geedka doolshada aan ku dubi lahaay waaye. asna marka kastoo yaraa la marinayaa. subag wuxuu ku fiican yahay doolshada makaaga dhagayso oo waxaan ku dhahay maasha allah aan ku dhahay asila soo fuqaayo ma ku dhibayso. marka hadda waxaan sameynaynaa kanaan qaadayaa waa kula marinaa si fiican aan ugu marmarinaa geesiska dhan si ay doolshada igu soo baxdo. doolsha ishcalaa oo saxanka aynu ku dhegin ay iskeeda uga soo dhacdo ayna iga qabsanin. saas waaye. waana la yeelayaa asxaabe. bacdan doolshada foornadaan gashanaynaa. saana kusoo wadeynaa. burka baska iyo saliidta waxaa ka fiican subaga markaa ku waxaysiin maasha allah doolshada mid kaga dhagayso. haddana waxaan sameynayaa waxaan ku shubaa bismillah doolshadii oo soo shiiday. bismillaahi raxmaan raxiim. meesha anaytu waxaan ka rabaa 5 xabo doolsho. halikii ugu horeeyay xabadii ugu horeysay saa u sameynayay waa idin tusay. kullina saasa usoo sameynaynaa step isla soconaynaa bilow ilaa dhammaad
haddana kan xabad ugu horeyso waaye halahaana ii dhiman geedkaana ii dhiman saliidii sokorta burka wax kale waa 5 xabo doolasho aan ka rabaa 5 cake marka saas ila socda asxaabteeda qaaliga bilow ilaa dhamaad waxaan idin leeyahay isoo dhawaada channelkan waa channelkiina subscribe like share kana iga hilmaamina maalintan idin wacnaato haddana foornadan gashaneena nala socda saxaabey waa kana doolshada foornadan gelinoyaa laakiin kor iyo hoos u shidan kor iyo hoos u shiday waxaan geeyay 150 oo xaraarada ah waa kana waa 150 oo xaraarada ah kana waxa waay kor iyo hoos marka saas noola socda keegaan ay soo baxay insha Allah waa arki doonaa keegi waa kana saan soo baxay ما شاء الله صحابي كيك سانو كسو بحي إلا رماتك انت هدا سو قارتين واكنا كيك سانو نون نقضي كيكين ما انت لغمشي كيكرو إنا بعادي معهان كيك آد فضوط آد معان سهل وعرقت سوسو سميي مكيند لو كسو شيدي كي وقعنت حربسك وماركت او labada birood oo lagu wareejinayo makiinada yarista oo gacanta waxa laga yaabay lahayd doolshadan inay waqti badan qaadato laakiin makiinada oo boobsiiyay 5 xabo doolshada dhan waxa ku soo sameeyay 3 saacadood marka waxaan idin dhihi lahay channelkan taalaan soo gaarteen subscribe-ka isaar like-tan hay hilmaamina waxaan idin dhihi lahay gambaleelka furta saan waxaan soo dhigay kuugu soo dhaco idin dhaho way soo dhigtay waxaan idin leeyahay nolosha idin wacnaato farxad iyo waara adduunka meel kasta oo ku joogtaan aan ku dhahay farxad iyo caafimaad iyo risaq waasac Allah idinku siiyo meel kasta oo joogtaan annagana saan jecelnaa Allah noo yeelo asxaabey marka waxa waaye assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh